السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنتادي التيري كبرفانو لجنل ليغن فركيرس بوردن أيان سوغرني ماتريكس بوردن قيبتيسي أهاي محوية تلو ماتريكس بوردن تيري اكسامن تيري اكسامن كي فوبرايدين كاتسمينيس walaalaha dhammaan janalkeena soo booqda waxaan leeyahay kafaa'iidaysi wacan waxaa la wixii markaa su-aala hoostun baad noogu reebi doontaan insha allah farimihiina kolley anaga waxay naga tahay dadaal waxaa suuragal ah wax badan oo idinka rabteen inaynan wada qaban karin laakiin inta awoodeyna inaan isku dayno inaan walaalaha usoo gudbino saa la socoto waqti badan buu u baahan yahay video editingka waqti badan u baahan yihiin casharadii ina camera soo fadhiisto iska hadla way fududahay laakiin markaad doonayso dadka inaad cashar tusto waqtiga u baahanta casharkii la diyaariyo rabaa barnaamij la geliyo rabaa qofkii aad muraayada gadaal ka fadhiya waxaa lagaa rabaa inaad ka dhaadhiciso balboorkan si uu eg yahay iyo noocu yahay marka caqabado badan baa kaa hor imaanaya soo ma arkin soomaalidu waxay u qaybsantaa wax la dhahayo oral eragaas aadaad u fahansantihiin amale soomaalidu waa dadka wax dhegadhegeeya soomaalida dadka akhriska aada ugu yaryahay waay markii la fiiriyo marka dhegadhegeynta waxaa ka wadaa waxay aada u dhegeystaan idaacadaha b b c da voice america haddana youtube channel iyo facebook a usoo baxayba kuwaasay ku xirayeen marka u fiirso dadka haddaad waxba sheegeyn hadda video iska soo fadhiisato way ku dhegeysanaan sababtoo a beson qofkaasi muuqaalkiis daawanayo unbay rabaan iyaga waxaa is leedahay concepti badan qofkaa laga faa'iido isma laha inta ugu badanna dhinaca waxbarashada dadka ma jecla haddaad si fiican fiiriso dadka waxay aada u daawadaan wixii markaas oo qof iska hadlayo wuxuu rabo iska sheega ama diinta ku xadgudbo ama dad ha caaya ama ha aflagaadi inkastoo ugu sii shidantahay oo waa la isdagaalo markaa maqasho hebel hebelaa isku dhacay dadka aada u daawadaan waxaad u malaysay soomaalida inay yihiin dad dhinaca dagaalka oo firfircoon oo maaragtay nabadda ay ku yar tahay saasaa umalayna markaa fiirsi nin inaagaa isku dhacay eblaayo ninkii waa ishaayaan iyo intay ka shidan tahay iyo waa iska taqaanin idinka ma fahamte dowladdii dagaalaa dhacay iyo qaraxa la suubiyey iyo runtii inaa maskaxdaas bedellayn u baahanaa runtii waa maskax runtii qariban oo la rabo ummadda in la bedelo qofka waa inuusan waxba ku qiimeynin dhibaataa dhacday okay dhibaatada hadday dhacday dhibaatada walaalka waa inaad la wadaagto ka murugooto laakiin annaga dhibaato le haddaan raadina ka waran 30 sana qax ku jirnaa arrimahaas runtii aniga waxaa dadka aada ugu ololeya ahay dowlad sax haddii la helo miidiyaha in gacan bir lagu dhigo ragga facebook qeylinaya youtube qeylinaya kulli accountiyada si automaticalaba in dowladaha jira ay nidaam ka soo saaraan oo la xakameeyo sida dowladda turkiga oo kale dadka aada arrintaas u danaynaya sababtoo dee dadka wax badan kama faa'iidaan kii wallahi teleefon uu soo qaadana uu soo fadhiisana qof aan maskaxiyan caafimaad qabinaad iska soo fadhiisana waad la socotiin wuxuu rabo iska sheegi ama dumarkeena kheyrka badnaay waxaa wareeriyay islaamaha milif lagu magacaabo waxaa waye islaamaha da-da noqdo carruurta ka weynaadeen ayaa inta badan u malaysay dhinaca aflagaadada inoo badaya dhalinyaro yaryar xoogaa waa iska dhalinyaro hooyooyinkii lagu dayan lahay marka hadday soo fadhiisato hooyadii caytamaysa oo hooyadii waxay rabta sheegaysa ama diintan ka baxay dhehaysa ama halkaanay ka dhacda ku dhehaysa maxaad u malaysaa marka mujtamaceena soo noqona cajaladaasi qofkaas duubtay effectiga ay mujtamaca ku leedahay ma malay karta laakiin dardaarankayga waxaan usoo gudbin u dambeyso fursaddan uga faa'iidaysan diinteena waxayna amartay qof kastoo munkar arkow man ra'aa munkaran falyuqayir biyadihi gacantiisa ku zuuli daawadayaasha imaamullah agtiisa xuja ah haysata qof kasta oo daawada barnaamij qariban oo aan munkarkaas waxba ka qaban ama committees ka qorin aakhira waa loo haystaa qof alla qofkii xumaan intuu soo gudbiyaad ku taageertay oo janadkiisa intaad booqatay oo aad videogaas daawatay oo aad committees ka bixin rabbulcaalamiin imaamullaahi waa lagu haystaa xadiiskii nabigaad kugu rumoobay man ra'aa munkaran falyukhayir biyadihi faman lam yastatic fabiqalbihi
waxaa lagaa rabaa marka inaanu ficil ku bedelno committees qorno dhahno waxaana samaynayso waa qaldan yahay, waxaana suubinayso waa waxaana jirin, sumcadda dadkaa ku cayaarin, taladaada dhiibo, ha u jexin runta u sheeg. marka aniga inta badan markaan janalada qaar booqdo wixii diiniyan qariban committeeskeyga meeshaan ku reebaa. kolley ma yeelayan, waxaa arkaysaa janalo aada u wanaagsan oo dadka ku xiriir quruxda qoyskao kale, haddana naag aada u caytamayso ayaa aniga ka dareensana halkaas in ay qofkaas munkarka sii faafinayo qaybkiiya. janal dhanaa la gelinaya, kiligta la fiirsana, quruxda qoyskaa la dhaha, waad booqon kartiin, waa fiirin kartiin. marka waxyaalaha aada qalbiga ku taabanaya, marka ummaddii aan baraarujinaya janalka magacu wato qoyska in la dhiso, wiil iyo gabar walaalo soomaaliyeed oo qiimo badana iskale, laakiin waxyaalihii soo gelinaya mararka qaar hunguriga meel walba hadduu kaa raaco dhibkeeda leedahay. runtii aadaan uga xumahay in janal lasoo geliya qof caytamay. runtii qofkii soo geliyaa mas-uuliyaddeeda leh. marka waxaan dhihi lahaa walaalaha meel kastoo la joogaba wanaagaynu faafino, xumaantaynu iska dayno. casharka ugu dheer runtii mararka qaar social media waxaa ku qabanayso ma iska daysaa runtii, casharna ha gelin, waxbana ha sameyn, laakiin waxaynu doonaynaa inaynu ummadda wax ka bedelno. sababtoo a qofkii xumaanta suubinaya le haddaan dhegaysano waa wareer wa. waqti badan uma hayno moogi, wax badan waxaan jeclaa in lasoo fadhiisto oo janalo qaarna farta ku fiiqno. ma aha xumaan inaan dhehayno caynayno aflagaadaynayno, laakiin waxaynu rabnaa arrin ka duwan in la keena. qofka waxaa la rabaa in lagu baraarujiyo, aakhiradiisa xasuusnaado oo diintiisa xasuusnaado. walaalaha ku xiran koley waad ku xirantihiin intay dhegaysan doonto cajaladaano, waajibaadku saaran waaye. uga naseexeeya haddaad booqataan, walaalkeen iyo walaasheen ha looga naseexeeyo. arrintaas waa muhim waay runtii. leeran farkeer boris mawduucina ka baxa ma jecleen. here ondol siye alif rubikin alkhamein farkeer borden ato met l. waxaa la yidhi halkan waxaad ku arkaysaa 11 jabtar iska dheh, 11 qaybood, 11 qaybood alkhamein sida guud ah farkeer bor oo ah intaad soo barateen. walaaladeed qiimaha badan waa soo baranay waxa lagu magacaabo snailhide. cutub dhan aan kusoo aragnay snailhide, maxima snailhide, electronics waa taqaani, forangs quslota verklaring oo ahaa waxyaalaha la ogolayn. wuu kaa xiran yahay labada dhinac, hal dhinac wuu kaa xiran yahay. rikhtin isbeekh waa iska taqaan. raay rikhtin waa taa taqaanay oo ah midka ugu dhibka badan. bidix baa u leexanaysaa, midig ma lagaaga imaan karaa iyo arrimihii la ahayd kuntu oo bestuder verwachte van links of rechts oo asaga ka hadlaya inta badan baarkiirankii. wuxuu qaabilsan baarkiiran stilistan. labadan boor aada bay iskugu qaldaan. stilistan waa calaamad x y, kan hadda waa baarkiir verboden. obrika geboden en verboden, kan waxaa waaye midka ugu daran asaga, oo wuxuu tilmaamaya runtii in haalanka g waa farkeer reeqalis oo autosneelveeg autoveeg waxaasuu aada uga hadlay. ha wuxuu ka hadlaya common oo ah bibawda county, magaalada in lasoo galay binibibawd iyo boytbabawd. 50 ku soco 80 ku socotii ahayd. varis kuwan digni letop iska jir, 3 geesood dadaalka letop biviq visering oo tilmaamaha xarakaadkaaga ay nambarkaas raac, european raac, xagga raaca lagu dhahay. l information ka hadlayo ah bundaa soo socota, qof lugeynay soo socda, jidda maadadooda looba soo socda iyo wax lamidka. bibakin waxaa loo jeedaa dabcan waa matrix boardinka noo imaan doono, kaasaan u jeednaa. sayna waxaan kusoo qaadanay ondobor. ondoborka mararka qaar uu ka awood badan yahay boorka kor ku yaala, feejigan gaara u baahan yahay. waxaan kaloo kusoo baranay casharadeenii anvasin oo ah askariga gacanta bidix hadda u taagan, fanfura naadarti kuwa horaa istaagay, saas waa macnaheeda. inta kale way soconaya. marka sharciyadaas waa intaan boorarkeena kusoo baranaa u malaynaya, war la qaba xiise ma lahan. matrix borden waxa loo yaqaano ama rystroke lichten waxay yidhahdaan. boorkan hadda wuxuu ku tilmaamayaa matrix borde
road cross waa guduudan yahay. The right stroke is gesloten wuu xiran yahay. You must need of this right stroke riding jidkan kuma soco kartid iska ilaali. falaartan waxay tilmaamaysaa ground pile oo ah falaar cagaaran. right stroke is open jidka waa right stroke aad furan yahay. matrix border for drive bileka wuxuu tilmaamayaa head maximum height for varsco indigniino ku siinaa maxay tahay for in road cross this right stroke had struct waa la xiray marno for in road cross guduudu soo imaan doona marna waa la xiri doonaa ee qadka iskaga bax. falaarta haddii hadda u sii jeedo dhinacan haddii u jeedo ama dhinacan kale haddii u jeedo waa isku mid un waxay tilmaamaysaa inuu jidka soo xirmo. maximum snell height u tilmaamaya kaas oo ah snell heightkii oo ah lagu sheegay kana nd alle electronicska dhamaaday wixii mamnuuc ahay oo electronic ah. kan wuxuu tilmaamaya right stroke mach schlecht gebroken diese right stroke voor bestuurder voor lijnbus en bestuurders van autobus. waxaa kaloo mari kara jidkaas taksiyada oo iyaga onta heefinaalo laga dhaafay kuwaasoo dhana mari karaan. fil uu tilmaamaya jidka noocan inay filo tahay riban mid waxaa jira isaga mararka qaar baawur jiifa oon ku lug ah kana lagu magacaaba matrix boarding. aada ula soco fadlan iyo fadlan ya adigoo mahadsan. matrix boardkan meeshan yaala wuxuu tilmaamayaa konton ku soco mist eryaan online markaa aragta online ayuu tilmaamaya. inta wuxuu tilmaamaya 80 ku soco maximum snell heightka waay saddexda right stroke 1 2 3 kan wuxuu tilmaamayaa shaqaa ka socota meesha dabcan 70 maximum snell jid shaqa ka socota waay calaamadaas la soo dhigay sida asalka meelaha shaqa ka socda 30 waa laakiin jidkan waa jid xawaaro badan baa horta ku socda auto viqa. casharkaas waxaa lagu magacaabaa marka leran matrix boarding baro matrix boarding oo tiirigii casharadeeni ahay. waxaan filaya walaalo badan baa aada ii beydiinaya boorkan ma arkin kan ma arkin ay dhihi jireen. kole waxaan filaya inaad ka faa'iidaysateen meel kastood aan doonida ka joogtaanba waxaa idinkaga tegay amaanada.